رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. إنه جبتو خلاف مجرية أنت الدولة جبتو عالم مجرية أنت مامور وضع قريب مجريسة إلهي أمبا كامل أو مشاهد أوليه بالآن وحوض الله قبل المروك سأصير مخلافات سأصير وطنسا كسر القريب هل عاد بيسمع لهذا ما كان هذا سنة وحط له وحول بوسيدي سنة هذا كذا ما كان فرشوا لفت له مجلسة عاد المهم ولا إلا السؤال لا تستنى سؤال بعضها والكل ما يصير اسمه ولا شيء هذا الكل ولا لكن قلبي أنا كم من سنة هذا المسلمان لها وما كان يقدر أفعل كانوا هذا البلد هاي وحي خلافات السلام عليكم ورحمة الله دعوينكو ugu hadal haynta badnaa maalmihii ugu dambeeyay ee Soomaaliland iyo sidii shacabku ay uga hadleen baraha bulshada ayaan jecelay maanta mowduucinan inaan idin kula wadaago haday tahay hadalkii taliyaha ciidamada Soomaaliland Nuux Taani iyo arinka Cornel Caare waxay dadka badankoodu u qaybsameen afar qaybood kuwa taageeraya taliya Nuux hadalkiisi iyo kuwa ka soo horjeeda oo si fiican uga hadlay labadaasiba iyo laba qaybood oo kale oo iyagu si qabiilaysan u hadlayay oo ay tamayay kuwaas oo ka koobna dhalinyaro iyo waayeelba waxaynu maqalnaa xor baynu nahay qof walba inuu reegiisa fikirkiisa cabiro xor buu yahay markaad haddaba tahay adoon alle jirtaa horta waxa la ilaahdo xorriyad mudlaqa ma jirto waxaan u sheegay labada qaybood ee dambe inaynu haddaynu nahay ummad islaama aynan u hadli karin sida aynu doono ilaa marka laga reebo sida ay diintu inoo ogoshay mooyaane hadday yihiin dhalinyaro iyo waayeelba waxa la gudboon iyo mas'uuliyiinba iyo xubnaha mucaaradkaaba asxaabta mucaaradkaaba waxa la gudboon inaynu iska ilaalino hadal kasta oo xanaf leh oo shacabka Soomaaliland kala qaybinaya midnimadiisa iyo wadajirkiisa maanta Somaliland khalad shicibkeedu waxa uu yaqaanaan qofkii TV ka hadla ee si adee anshaxayo si wanaagsan wanaag wax ka fogde ku hadla baa loo arkaa qof khalad ku dhacay laakiin soo qofka baraha bulshada hadallo xun qabiil duris hadal mowduucu meeshiisa laga raro qofka noocaas u hadla uma aragnayna khalad tahay waa isku mid qofka baraha bulshada ku qoraya waxyaabo aan muhiim aan hayn oo laga wanaagsan yahay iyo qofka TV-ga ka hadlay waa isku mid sidaasi awgeed qof kasta oo muwaadina waxaan leeyahay ha noqon mid ku caana afxumo ee noqon mid ku caana hawl wanaagsan iyo af wanaagsan qof ku caana noqo siiba dhalinyarta waxaan leeyahay waxa tihiin jiilka dambe iyo mustaqbalka dambe ee dalkan hogaaminaya maanta afxumo markaad ku caantahay oo aad qabiil duraysid sidaad berito oo shacabkan iyo ummadan aad u hogaamin doontaa adigoo oo CV-gaaga hore xun yahay qofka waxa la gudboon qof walba shacabka reer Soomaaliland waxaan ku talinayaa oo la gudboona markuu wax ka hadlayo inaanu mowduuca waxa ka hadlay aanu ka bixin oo aan cid kala gelin oo mowduucan aanu qusin asxaabta mucaaradkana waxaan leeyahay dalkani uma baahna in maalin kastaba la ilaahdo maanta dalku waxa uu marayaa halka ugu xumeed oo balaayo loo yeedho waxa la yeesho Soomaaliland waxay soo martay marxaladan ay maanta ku jirto ee horumarka iyo nabadda marka loo eego dagaaladii xorriyadda iyo dagaaladii beelaha Soomaaliland wada dhexdooda ka dhacay dhibaatooyin xun bay ahaayeen oo dhexdooda ka dhacay shacabka reer Soomaaliland qofkii joogay uu garanaya kaan joogina amba aabi amba hooyadii amba walaalkii amba adeerkii amba inaadeerkii amba cid ehelkiisa kamida ayuun baa ku dhimatay dhibaatada ay nabadgeliyo daradu ay leedahay waa la garanaya marka dalkan dhibaatooyin waaweyn oo marxaladu maanta ku jiro ee nabadda iyo horumarka ayaa soo maray sidaasi awgeed hadii la ilaahdo maanta marka loo eego xaaladaha soo maray oo xaalad ka wanaagsan u marayo hadii la ilaahdo dalku wuxuu marayaa halka ugu xumeed de waa balaayo yeerasho weeyaan sidaasi awgeed Allah laga cabsado oo si wanaagsan loo hadlo mucaaridku waxa weeyaan muraayada
dowladdu ay iska dhex arkayso waxaa loo baahan yahay inay dowladda u noqdaan sida muraayadda oo kale markay wanaag samayso inay ku taageeraan wixii wanaaga xumaanta iyo khaladaadkana inay saxaan baa loo baahan yahay waayo waa dadka doonaya dee inay ummaddan hogaamiyaan yaanay fursad u arkin waxaan leeyahay fursad ha u arkina khaladaadka dowladda oo waxa doontaan baa iskaga hadlina laakiinse saxa oo wax wanaagsan ku hadla mucaaradka saasaan leeyahay waxaad tihiin muraayadaas baa tihiin xildhibaanada haddaan u imaado iyaga waxaan leeyahay magaalooyinka laga soo doorto horta waxaad matalaysaan ummad dhan baad matalaysaan oo idin soo dooratay kuwaasoo idin arkay aqoon-yahanadii ugu mudnaa idin arkay inuu xilkaa qabto qofkaasi kuwa idin arkay shacab idin arkay baad matalaysaan sidaas si awgeed si aqoon leh oo mas-uuliyad leh uga hadla xaaladda waddanka markaad ka hadlaysaan amba iska aamusa waayo somalilan uma baahna wax dubudhac ku keenaya si dalkan uu hadafkiisa u gaadho oo ah inuu aqoonsi helo inay nabaddiisa iyo horumarka iyo dhaqaalihiisa iyo awooddiisa ciidan inuu sii xoogaysto hadafkiisa ah suu u gaadho haddaad tihiin xildhibaanadii ha keenina asbaabo dubudhac dalkan ku keenaya dhammaan mucaarid muxaafid shacab cuqaal culimo aynu ka shaqayno si dalka somalilan uu hadafyadiisa u gaadhi lahaa waayo cid walba oo somalilana dan baa ugu jirtaa hadafyada ay somalilan hiigsanayso intaasaan idingula talinayaa dhammaan xubnaha aan soo magacaabay aad baan idiin salaamayaa meel walbaad caalamkaa ka joogtaan